badanaa waxaan waqti badan ku luminaa isticmaalada aaladaha kala duwan ee baraha bulshada, hadday ahaaneed Facebook, Instagram, TikTok iyo YouTube. laakiin ma ogtahay aalada Facebook inay jiraan farsamooyin badan ee ku qarsan isticmaaladiisa? maanta waxaan rabaa 3 ka mid ah farsamooyinkaasi inaan sharxo insha Allah. sidoo kale ha iloobin in YouTube channelkani aad ku soo biirto aan subscribe garaysid. marka daawasho wacan. farsamada koowaad ayaa waxay noqonaysaa in aad qorisid in lagu ogaado marka internetka online tahay ama offline tahay. taas micnaheedu waxay tahay Facebooka bariyahan dambe wuxuu soo kordhiyay qofka online ah in lagu garto calaamad cagaar ah. marka waxaad awood u yeelan kartaa in calaamadaas iska xirtid qofna uusan kuu jeedin marka tahay online. haddii ay noqoto inaan lagu ogaan inaad tahay online, sidoo kale aadna awood uma yeelan doonto inaad aragtid dadka kale online-ka ah. marka saa u sameeyay farsamadani ama aad u qorisid in lagu ogaado inaad online tahay iyo in kale, marka ugu horeysa soo furo Facebookkaaga, kadibna waxaad ku dhufataa 3 calaamadood oo geeska ah. kadibna waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay setting and privacy. kadibna waxaad ku dhufataa qaybta setting. kadibna hoos intaa u baxdid waxaad ku dhuftaa qaybtan ay ku qoran tahay active status. waxaad u jeedaa hadda in uu shidan yahay ama uu active u yahay xagga ogaanshaha in aan online ahay in kale. markii aad calaamadan ka qaatid waxaad adkaanaysaa in lagu ogaado inaad tahay online ama offline. marka sidoo kale wuxuu ku leeyahay haddii arrintan aad xirtid ama aad samaysay arrintani, sidoo kale waxaa adkaanaysaa in adiga aad ogaatid in saaxiibadaada in ay yihiin active. marka haddii aad diiday in lagu ogaado inaad tahay active, sidoo kale waxaa adkaanaysaa in aad ogaatid dadka kale inay yihiin active. marka saa u samaysa arrintan intaan ayaa samaynaysaa. sidoo kale waxaa leedahay turn on ama off midaad doontid. hadda waa kaasa uu shidan yahay active weeyaan. haddii calaamadan aad xirtidna wuxuu noqonayaa wax qarsan. sidoo kale farsamada labaad ayaa waxay noqonaysaa in aad wax ka bedeshid ama aad tirtirtid ama dib ugu noqotid wixii comments iyo likes aad samaysid. haddii sanadkii hore ama bil hebel ama bisha December aad video comment ka bixisid ama like aad saartid, waxaa adag in aad videogaasi dib u raadsid. laakiin waxaa jira farsamooyin ama farsamo cusub taasoo kuu suurtagelinayso in aad wixii sanad ka hor ama bil ka hor aad samaysay aad dib ugu laabatid. marka arrintaas aad u samaysid waxaad ku dhufataa 3 calaamadood gees ah. sidoo kale waxaad ku dhufataa qaybta setting. kadib hoos u sii soco waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay activity log. halkan aad waxaad ka arki kartaa taariikhda iyo xilliga iyo sanadka inaad ka ogaatid inta postiyo aad la garaysid ama aad comment ka bixisay. marka waa u jeedaa sanadka macal bisha maalinta ayaad arkaysaa. marka waxaa awood u yeelan kartaa in intaad doonto aad tirtirtid. marka tusaale ahaan haddaad rabtid inaad ka laawatid video comment ka bixisay ama like saartay, marka ugu horeysa waxaad samaynaysaa 3 calaamadood geeska ah ayaad ku dhufanaysaa. 3 calaamadood ayaad ku dhufanaysaa. kadibna waxaa u jeedaa in aad awood u yeelan kartid inaad ka noqotid in aad direct garaysid commentigaasi. sidoo kale qofkii comment ay ka bixisay in aad profile-kiisa booqatid. sidoo kale videogan waxaa u jeedaa in aad booqatid commentigii aad bixisay. marka haddii aad doonaysid commentaas inaad tirtid waxaad ku dhufataa delete, isla markii uu bixi doonaa. marka sidaa darteed waxaa awood u yeelan kartaa sanad ama maalin ama bil lasoo dhaafay in aad ka tirtirtid wixii comment iyo like aad samaysid. marka farsamadani waxay ku fududeynaysaa inaad ogaatid wax qabadkii aad samaysay sanadihii lasoo dhaafay ama bilihii lasoo dhaafay ama maalmihii lasoo dhaafay.
sidoo kale farsamada saddexaad ayaa waxay noqonaysaa in facebookgaagii ownershipkiisii ama lahaanshihiisa inaad caddayso. taas micnaha waxaa ula jeedaa facebookgaagii in aad daladgelin kartid, facebookgaagii dhan in aad daladi kartid akoonkaaga. sidoo kale maalmo inaad facebookgaagii qarin kartid, qofna aan arki karin magacaaga iyo sawiradaada iyo facebook akoonkaaga oo dhan cidna aan arki karin. sidoo kale waxay noqonaysaa ownershipka in facebookgaagii lahaanshihiisa markaad dhimatid kadib in go-aan aad ka qaadatid. marka arintaasaa u samaysid waxaad ku dhufataa saddexdan calaamad, kadibna qaybta setting, kadibna hoos u sii soco, qaybtan hoose ay ku qoran tahay account ownership and control ku dhufo. kadibna waxaad u jeedaa midda koowaad inuu yahay memorialization setting. tan minacdu waxay tahay wuxuu ku leeyahay decide what happens to your account after you pass away. go-aanka qaad akoonkaagii waxaa ku dhacaya markaad dhimatid kadib. haddaan ku dhufano wuxuuna siin doonaa options oo annaga go-aan aan ugu qaadan karno. taas micnadu waxay tahay waxaad dhihi kartaa qaybtan hoose inay tahay delayed after death. taas micnaheed tahay in akoonkaaga la daladi doono markaad dhimatid kadib. sidoo kale waxaad dooran kartaa legacy contact. legacy contactiga waa qof uu la wareegi doono facebookaaga gacan ku hayntiisa markaad dhimatid kadib. marka haddii aad doonaysid in aad doortid qof saaxiibkaaga ama familkaaga inuu facebookaaga gacanta kusii hayo, waxaad dooranaysaa qaybta legacy contact ay ku qoran tahay. haddii aad doonaysid in facebookgaagii la daladi karayn, waxaad ku dhufataa qaybta daladka ah. sidoo kale farsamada ay ku jirto ayaa waxay tahay in facebookgaagii deactivation and deletion waxa inaad ku samaysid. taas micnaheedu waxay tahay si ku meel gaar ah in facebookgaagii aad u qarisid aan dibna loo arkin, ama si permanent ah weligeedba in aad facebookgaagii u dalad karayso. marka waxaad ku dhufataa qaybtan ay ku qoran tahay deactivation and deletion. kadibna waa kana mid koowaad waxay tahay deactivate account. akoonkaagii in si ku meel gaar ah aad u xirtid, waxaad ku dhufataa calaan markaad doorto kadib waxaa leedahay deactivation ku sameey, ama waxaad samayn kartaa delete akoonkaaga ku sameey. marka waxaan rajaynayaa in muuqaalkani wax aad ka faa'iiday. sidoo kale iloobin in YouTube channelkani aad ku soo biirtay, subscribe garaysid, sidoo kale saaxiibada aad la wadaagtid macluumaadkii aad ka faa'iiday halkan. sidaa iyo nabadgelyo. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals